ama wax akhrisko waa micyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda. waxaana yidhahdaa noloshan maanta casriga ah dee la-aanteed maba jirto, xataa alqiraa'a tawdiifiya bay yidhahdaan. waxaad qiyaastaa magaaladan ay degan tihiin oo aan traffic waxaan ku qoran lahayn, oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn, oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn, ama se dadku aanay akriyi karaynin, noloshu say noqon lahayd. waxaad qiyaastaa magaalada aan adressis lahayn. waagi hore de waxba lagu qori jirin soo maha. waxaad qiyaastaa Toronto aan adress ku qorayn, wax traffic sign aanu qorayn, wax raashin ku dul qorayn aanu jirin. yani waxay noqon lahayd nolol adag oo sacaba in la noolaan karo. walidaalika waxay yidhahdaan maanta nolosha casriga dambe iyadu qiraa'o la-aantu suurtagalba maaha. haddaba qiraa'adu waxaa ka asala inay tahay cimrigii oo aad ziyaadinayso. ilaahayna subxaana watacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya cimriga iyo qiimaha uu leeyahay. qur-aan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranaya waktiga, wاduxى wاleyli ida saja wاlcasri in alinsaana lafii khusr iyo wixii lamid ah. ama ba uu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam, qofka maalinta qiyaame ka zuuli maayaan gomadiisu dhulka, oo yani waa la haynayaa ilaa iyo 4 shay la weydiiyo. 4ta shay 2 shay baa cumriga ku saabsiisan. taa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha ugu fiican qofku uu cumrigiisa ku xisaab ku isticmaali karaa waa masalaة اlqiraa'a. waxaan markaa rabaa inaan ka waramo deris kooban oo ku saabsiisan marka koowaad salafi اlumma ama dadkeennii hore iyo qiraa'ada siday u arkayeen ama siday u jeclaysanayeen. intaanan kelmaddaasi markaa soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay. kow, waktiga waxa ugu fiican ee lagaga faa'iidaystaa waa wax akhris. waxaanay u arkayeen culammadii muslimiinta ahayd qiimaha waktigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo. waxa ugu badan ee lagu soo saara mithaal, haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido, rubuc saac intuu leegihi, rubuc saac more than 10 pages baad akhriyi kartaa. qofka ugu gaabiya qiraa'o, qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido, sanadkii misaad akhriyaysa? sanadku 365 maalmood soo ma ahayn. waxaad akhriyaysaa 3650. that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhamayn karaysaa. ugu yaraan buugga caadiga iyo normalka ahi waa 300 ilaa 300 iyo waxoogaa bage, 360 bage meelahaasi, ama 400 oo bage markaad tidhaahdo. haddaad maalintii 10 daqiiqo wax akhrinayso, macnaheedu waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan 10 buug oo noocaasiya ama dhowr iyo 10 buug oo noocaasi aad dhamaynaysa. yani mawsuuca في علم الحديث أما موسوعة في تفسيره أما موسوعة في علم كلام أيضا لما ينكرتها بمجرد أن أدو قرشيسة أن أدو أخرده محي 7 بيج أما 8 دقيقة دود أن أدو أخرده مالنتي. هدي أي واحد برشاد عين كان نقوم كاري لهاي ما كانوا لأنا وقت كان دي ليه إمي الساود وقت ياد خسارة يسادوا مالينسا إمي ساسي وحبات بران كاري لهاي. يعني علماء المسلمين تهري وحلا يقاني waxay ahayd dad mawsiiciyiina. mawsuucadu yani dad encyclopedia, qof wixii la soo qaadaba ka jawaabi kara. hadday culuum diineed tahay bikulli funuuniha, iyo hadday tahay culuumtii casrigooda jirtay bikulli funuuniha, ama astronomy ha noqoto, ama geography ha noqoto, ama taarikh ha noqoto, ama طib ha noqoto, ama philosophy ha noqoto, ama riyaadaad ha noqoto, xisaab ha noqoto, waxay doonta ha noqoto. caalimka faqiih ee masaajidka fadhiya wuxuu ahaan jiray mawsuuca mutanaqila, maktabad guuraysa oo kullu lfunuun keligii laga heli karo. sabab kalena may jirin, dadka kamay caqli badnayn, bini aadam ka baxsan may ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad waktiga ka faa'iideeya. waxay ahaayeen dad waktigooda ku bixiyey inay wax baran karaan. maanta waxay idhahdaan averageka dadka caadiga ahi bay idhahdaan ugu yaraan 3 saacadood bu TV daawadaa bay idhahdaan.
afreedka caadiga marka laisku dardaro 3 saacadood waqti ku dhadhow TV daawada haddaad 3 saacadood wax akhri lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa yani halka TV-guna haddaad buug ku bedeli lahayd ay fanku doonayo ha noqdo waxaa soo bixi kari lahaa yani في خلال 10 سنوات أما في خلال 15 سنة واحد دنيا لقوها هي فن هي واحد جاهل كان نقول هاي المشكلة